السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا uga barateen halkeen idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhacay dunidakooda ugu xiisaaway waa maalinimo sabti ah 6 bishii lixaad 2020 waxaanu qaybteenan ku eegaynaa wararka dibadda haddaba waxaan ku bilaabaynaa dalka Djibouti maalmahan waxaa ka socday mudaharaadyo isxiga taasoo lagaga soo horjeedo dowladda markii ay xirtay sarkaal duuliye ah kaasoo ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Djibouti isaga oo lagu eedeynay sarkaalkaasi inuu la goosanayay diyaarad ay leedahay dowladda dalkaasi Djibouti oo ah diyaaradaha dagaalka sarkaalkan ayaa markii u baxsaday dalka Itoobiya waxa ay dowladda Itoobiya u soo gacan gelisay dowladda Djibouti bishii Febraayo isagoo ilaa haddeerna aan maxkamad la soo saarin waxaan kaloo idin helnaa daawadayaal dalka Pakistan ayaa waxaa la sheegayaa in caabuqa COVID-19 ee cudurka safmarka ay dunida aafeeyay uu faraba'an ku hayo iyadoo la leeyahay dalka Pakistan waxa ay ka sara martay dalka China iyada oo la qiyaasayo tirada uu ku dhacay dadka reer Pakistan ay gaarayso in ka badan 90,000 ayaa waxaa la soo sheegayaa in maalin qura laga helay in ka badan 4,000 oo qof iyada oo tirada dhimashadu ay cagacageynayso ilaa iyo 3,000 dowladda dalka Pakistan ayaa waxa ay wadaa dadaalo ay ku xakameynayso amaba ay kaga hortagayso inuu cudurku intaasi ka sii xoog bato amaba uu ku sii fido bulshada iyada oo wacyigelin iyo wada baaritaano xoog leh oo ay ka sameynayaan dhammaan xarumaha ee ku yaala goobaha caafimaadka oo dalka idil laga howlgeliyay inay baaraan dadka oo ay ka eegaan in cudurka uu qabo iyo in kale shucuubta dalka Pakistan ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dad aad u far badan iyaga oo magaalooyinka Pakistan ay yihiin magaalooyin aad ay dadku ugu badan yihiin ayaa sabab u ah baa la yiri inay dadku isku daartaan ama cudurka heerkaas gaaro dalka Liibiya dowladda la aqoonsan yahay ee GNA ayaa waxa ay la wareegtay magaalada Tarhuna taasoo uga dhigan in ay tahay magaalo istiraatiijiya dowladda Liibiya oo aan dagaalo kala go'ol ahayn ku waday General Khalifa al-Haftar ayaa waxa ay gaarayaan bilahan dambe guulo waaweyn waxaanu kaloo idin helnaa daawadayaal magaalada ku taala galbeedka dalka Turkiga ee Asmir la dhaho ayaa markii lockdown-ka laga qaaday amaba la khafiifiyay waxa ay noqotay meel aad u mashquul badan iyada oo aad arkaysid inay baabuurti ku soo noqdeen wadooyinka si amiran iyaga oo u soo buux dhaafiyay iyo dhammaan suuqyadii ay ku yaalay halkaas oo isu socodkii magaaladaas gabi ahaanba noqotay mid ciriiriya ayay dowladdu waxa ay ku sheegtay inay bishan horaanteedii ay ka gaartay guul in uu cudurka COVID-19 aanay cabsi ka qabin inuu ku soo laba kaclayo waxaanu kaloo idin haynaa daawadayaal magaalada Washington wadooyinkeeda waaweyn mid ka mid ah ayaa waxaa loogu magac daray ninkii madoobaa ee bishan aynu soo dhaafnay dabayaaqadeedii lagu dilay magaalada Minnesota ee cariga Mareykanka kaasoo uu askari cadaan u dilay si foolxun ayaa maayarka magaalada Washington DC waxa uu amray in ninkaasi madoobaa ee magaciisa la oran jiray George Floyd loogu magac daro jiddan iyadoo halkaas la suro tabeelo ay ku qoran tahay Black Matter is Life waa Bolmog Media tan iyo kulanti dambe wanaagsan. Wassalaamu calaykum.